الله وبركاته. habeen wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku soo qaadanayno taariikh nololeedkii ilaahay naxariisana ka waraabiye abwaan xuseen jaamac rooble xaaji gujis oo 16 bishan ama sabtidii lagu aasay magaalada Hargeysa kadib markii uu ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa. cabdi yuusuf ducaale boobe oo intiina badan amaba wada garanaysaan ayaan barnaamijkan marti noogu ah isaga ayaan ka warrami doona bal hadda taariikhda xaaji gujis. ugu horreyn cabdi waxaan weydiiyey bal in uu ka warramo xaaji gujis ama xuseen jaamac rooble oo xaaji gujis loo wada yaqaanay oo heeso badan uu leeyahay iyo riwaayadaba intaba lahaa in uu ka warramo boobe. xuseen jaamac rooble oo loo yaqaanay xaaji gujis naxariistii janno allah siiyo waxa lagu aasay magaalada Hargeysa 16 bishii February 2002. xuseen jaamac rooble wuxuu ahaa ilaa dhowriis 60 jir waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa oo ku barbaaray waxa nin kaftan badan oo bulshada ay dadku aad u xiiseeyaan sheekooyinkiisa. marka uu ka hadlayo halka uu ku dhashay wuxuu halhays u lahayn jiray oo waxa jibudsoon jiray mani baan Hargeysa ku dhalan oo soo haysteen u dhashay. طبعا نور بهالكي وكل شيء هرجيسة ونقنيسة وحسها وحاجة وقبة هرجيسة أيو إنه اللي ماشي سيو قبة يرانتي سيو حكوبر باري سيدا ويش أجي بيشي تشين وركون يسجال بقول يسدد يسجال شكي من هرجيسة كلاب عجلت كذا وانكور سنة تاريخ دي الله نحرست عبد الله قرشه إنه يرانتي سيو كبر باري هرجيسة من عام القرآن بالوضري كموك راجين سيد ويش أجي waayo wuxuu jeclaa oo hilal badan u qabay fooq ku yaalay xaafadda oran jiray Sakataliire oo Hargeysa fooqaas oo kreesna kooxdii loo oran jiray walaalaha Hargeysa waayo halka galabtii fadhiisan jireen oo ku hees jireen oo ku tumi jireen ayuu xaaji ku jeclaa inuu geli ka dambe joogo oo uu la joogo dadkii halka ugu tagi jiray waxa kamid ah Xuseen Faarax Cabdilaahi Qarshe Maxamed Ismaaciil Barqad Cas Ismaaciil Sheekh Axmed Ali Suuleeye qaar kale oo badan. وهالكي وكسو عربي وكسو برباري حسين جامع روبله حاجي جوجيس رونهانتي سامي وينو ويكويا لتفن كيسا واي حسين جامع مو هين أبوان حسين وحو هنن كل مياه لا بدن وفن كل يهي حسين وحو هنن هالعبورة حسين وحو ها نن شرايا حاجي وحو ها ملحن أما دad kan codka uu sameeyay heesaha xaaji wuxuu nin maadeeya oo isoo ku soo diyaar garoobin oo riwaayadba ku dhigeen markaad suuqa noloshiisa caadiga la joogto aad qosolka rafanayso xaajigu waxa uu tumi jiray kamanka muusigana uu yaqaanay intaas uu kulmiyay talooyinkii ugu horreeyay waxa uu ka qaatay nimankaas gaar ahaan Cali Suulle 62kii ayuu bilaabay fanka riwaayadiisii ugu horreysay oo ahayd gardiid waa la diid waxa uu sameeyay 1964kii halkana lagu dhigay Hargeysa. xaaji dhowr 60kii wuxuu u wareegay magaalada Muqdisho oo ka shaqeyn jiray intii dambe dabeedna dadka intiisa badan ama dadkii bariga joogay way xasuustaane waxa xusuus gaar ah mudan 66kii iyo 67kii heesiyahan ku dhaga ahaa ee laga dalban jiray radio Muqdisho ama radio Hargeysa. dadka halhayska u noqday xaajiga ayaa lahaa gaasira inaga yeena kala guraaya Axmed Mooga ayaa ku luqay jiray timadheer baa kamid ahay oo Maxamed Nuur Giri qaadi jiray waxa kamid ahay hawsha ila gal ama gooni noqo aan ka gooye waxa qaadi jiray fanaankii weynaa Cumar Duule. Hargeysa wuxuu ku soo noqday 1969kii sida uu bariga aan wareysanayay ii sheegay marka loo aan ka duuliyay heesiisa 93kii 17kii bishii October markuu halka ku soo noqday radio Hargeysa waxa haystay Mustafa Xaaji Nuur. riwaayad bariga sameeyay ayaa iyaduna waxay ahayd ragba ficilkii haween fududee. riwaayada kale oo Hargeysa ka dhigay waxa kamid ahayd diin kuba dantiisa iyo kuma yeedhinay adun bay iska yimid. waxa laga yaabaa riwaayado kale inuu lahaa oo aanu dhigin. xaaji gujis wuxuu ahaa nin laamaha badan ee fanku ay ku kulmeen
waa in yar inta dadka sidaasihi intii aynu aragnay nolosheenna matalan cabdillaahi qarsh oo kale oo hal abuur ahaa oo kamanka tumi jiray oo alxaanta samayn jiray cumar duule oo kamanka tumi jiray oo heesi jiray oo hal abuur ahaa oo laxanka samayn jiray laakiin giddigood markaad wada eegto cabdillaahi oo kale markaad qaato waad arkaysaa laantaa ah ama mawhibadii uu lahaa inuu muusiga curiyaa way ka dheereenaysay kuwa kale cumar duule haddaad eegto codkiisa iyo sidii muusiga u tumayey way ka dheereenayeen kuwa kale hal abuurnimadiisa ama mulaxannimadiisa talayaab kale meesha ku jirtaa waxa weeye xuseen jaamac gujis intan laamooda ku kulantay baan kala dhacayn oonad garanayn mid aad mid ka reebto hal abuurnimadiisa sida uu laxanka u curinayo iyo sida uu wax u jilayo intaba wuxuu ku ahaa nin hormood ku ah xaaji gujis mu ahayn dadkan fanka ku nool waxaad odhanaysaaba fanka ayaa xaajiga ku noolaa markii ugu horreysay dhowr iyo lixdankii labiyo lixdankii xaajiga waxaa ku dhacday krishbay buu ahaa isagoo baabuur sifeynayuu gubtay lixdameeyadii dhakhtarkaa la dhigay sanad buu koma ku jiray maadaama uu dhakhtarka muddo dheer ku jiray xaajiga waxaa u suuro gashay inuu farsamooyinkii caafimaadka mid ka mida barto isagoo ka shaqayn jiray x-rayga dadka lagu sawiro xaajigu markaa fanka wuxuu la jaan qaaday isagoo aanu fanku meherad u ahayn ee nolol kale haystaa dabeedna fanku wuxuu ahaa un hiwaayeed markii dambe wuu dhoofay dadkii khaliijka tegey buu ka mid ahaa gaari sabaaxuu la soo degay halkan uu gurye ka dhistay xamar iyo halkan uu isaga shaqayn jiray wuxuu u ahaa un fanku markana wax kale oo waktiga isku dhaafiyo oo uu dadka ku maaweeliyo laakiin tii mu ahayn wuxuu ka soo saaray nolol maalmeedkiisa dee intii hargeysa ku aragtay way aragtay waana garanaysaa xaajigu kal ahaanna wuu xishoon jiray kor ahaanna wuu xarragoon jiray mu ahayn dadka meelaha joogjooga ee dadka barbarya fankana umu aqoonin xirfad lagu shaqaysto waana ta keentay inuu dad badan oo la mida beriga ah uu kaga duwanaado naxariistii janno allaha siiyee beryaha dambe oo hargeysa kusoo noqday toddobaatanadii heesihii halkudhega noqday waxaa qaadi jiray maxamed mooge waxaa ka mid ahaa haween waa u samir ama ka samir sidaa waxay ku dhaamaan loomaba samaynine waxaa ka mid ahaa miyaad tale ka weyn tahay waxaa ka mid ahaa wallahi anigu goornaba kuma naco gobaaday waxaa ka mid ahaa waa weli asteeye cabdiqaysba weydii waxaad is odhanaysaa sanadaha toddobaatanadii ilaa siddeetanadii beryahaasoo maxamed moogiye ay ka mid ahayn calaansidayaashii codadka heesaha ugu badan ee uu qaaday waxa ahayn kuwa xaaji gujis taasaa muujinaysaa fanka xaajigu halka uu taagnaa hal abuurnimadiisu halka ay joogtay beryaha uu ii sheekeynayay uu taarikh nololeedkiisa iga sheekeynayey matalan markaad alxaanta oo kale eegto codadka uu leeyahay ee uu sameeyey waxaa ka mid ah hees ay sahri qaado oo ereyada uu lahaa cabdi cali weyd oo la yidhaahdo sida weyn gamaanoon la mirin waaga tiigsaday oo aad garan karaysaan muusigu siduu ahaa waxaa ka mid ahayd alxaanta uu ii sheegay hees la yidhaha nuur alcayn oo uu isagu leeyahay oo uu axmed mooge qaadi jiray xaajigu habeenkaa uu iga sheekeynayay nuur alcayn wuxuu ka xanaaqsanaa inay dadku idhahdaan nuur alcayn ayuu ka xanaaqsanaa wuxuu ka jeclaa inay yidhaahdaan nuur alcayn yani inuu sidaa qofku wax usii dhandhamiyo waa halka ay fanaannimadiisu ay ku jirto wuxuu iga sheekeeyey markuu codka samaynayey inuu xamar u qaadi jiray alaab isagoo baabuur sabaaxa wata magaalo kisuuma la yidhaha koonfurtaa ku taalan cambow kasoo qaadi jiray gaariga dhexdiisa isagoo ku jira ayuu laxanka doondoonayey meel beled weyne ka sokaysa oo dalcada oo qabna la yidhaa maruu ka daadegayay gaarigoo culus oo uu bireegana hayay gaar culusna ku jiro aayar sii daydaynayey qabqabashadii uu gaariga qabqabanayay ayay ka soo baxday yaa nuur alcayn halkaasay ugu xidhan tahay waa halka uu fank ku jiro ama ninka fanaanka ah marka uu xurinayo aan ahayn inuu qofku intuu meel isku xidha yidhaahdo waxbaan samaynayaa ninka fanaankii waxaanuu samaynayaa ay xidhiir la leeyihiin nolosha sanqadhaha dareennada uu arkayo oo aanay ka go-onayn nolosha inta ay sidaasii tahayna waxa ay sii noqonaysaa wax qurux badan oo dadku ay xiiseeyaan xaajigu dhaxalkaasuu ka tegey oo aan duugoobeyn oo intaasoo nooc ahaa oo lagu xasuusanayaa
waxaa lagu xasuusanayaa qofnimadiisii wanaagsanayd mu ahayn dadka xanta waayo xaajigu uma baahnayn inuu cidna xanto si badheedha ayuu qofka intuu isu soo hortaago ayaa waxa uu ka qabo uu ugu sheegi jiray hantidiisa ayuu fanka ku bixin jiray waxa u dheerayd inuu ahaa dadka abaabula ee kooxaha sameeya ee riwaayadaha isku dubaridaa kooxdii warsan barnaamijkan iminka b b c da ka socday haama dhowr oo uu lafdhabar u ahaa xaajigu waxoogaa geeru halkaa ka qaatay unesco ayuu ku bixinayay imikada radio hargeysa riwaayadaha yaryar ee uu sameeyo in lagu jiro oo uu dadka isugu soo ururiyo muu daalin dhowr iyo 60 buu ahaa muu gurin muu gaagixin ilaa imika wuxuu ahaa nin la maalo oo fankiisu uu socdo waxaan jeclahay anoo soo gargarooday xaajigii iyo taariikhdiisii inaan hees yaroo barodiiqa raaciyo layduma yaqaano heesaha laakiin geeridu way taabatay cabdi intaynaan heestaa aanad raacin waxaan jeclaan lahaa bar hadda in ubad inuu ka tega xaaji iyo in kale inaad dadka uga waranto haddii aad ka hayso xaaji kollayba dhowr goor buu guursaday dee way kala duwanaayen dumarka qaar ay isku raageen iyo qaar aanay isku raagin laba dumar ayaa wuxu dhalay midna inan ba u dhashay midna laba hablood ba u dhashay inankii kal hore ayuu dhintay waxaan filaya in labadii hablood nool yihiin waayahay bal haddaba iminka inoo bilow heestaasi markaa heestaan weydiye lafteeda waxaad ugu tala gashay un iminka in intaa xaajigu geeridiisu timid unbaad heesta adiga laftaadu dareen unagu yimid geerida xaajiga waayahay bogasada oo xaajigu dee qof weyn buu ahaayo oo waxaa laga yaaba inaanay dadku si wada arkayne qof qiimaha leh ayuu ahaa maan dareemin qiimihiisa anu iminka intuu noolaa ayaan ogaa taasina waxay geysiisay inaan 17 Oktoobar 1993 ka duubo ilaa 30 heesood wuxuu yidhi xishood caado uu ahaa astaan xarraga uu ahayd kii oo cidna aan xagxagan xaqdhowr baa lagu yiqiin fanku xakab aan jabayn xuladka lagu daara iyo xasaska horiyo uu ahaa xaaraan ninka caaganaa xooggiisa manciinsado baryada aan xeerinine xalaal maal uu ahaa xariir kaftan uu lahaa xaruuraa loo yiqiin xiloodinta uu lahaa siduu xididka u yiqiin saaxiibbada ugu xidhnaa dadkaa xigta uu ahaa dalkaa xuduntii ahaa hargeysuu xiise badan xusuusile uu jeclaa midha allaxaw loo xigtiyo muxuu sida xabag barsheed xidaynta alxaanta iyo codkaba xarakayn ogaa muyuusigu ku xadfanaa xantiya been muu aqoon runtaanu ka xeeban jirin xaraar nin butaystayoo xifaaliya doob badheed nimaan loo duur xulayn haasaawaa lagu xadayn kasmada xila loo igmado xumaa ka sarriigto oo colaad ka xanaaqo oo dalkoo xasilana jeclaa nabadda u xishuu ahaa nin xeerka daneeyo oo xadgudub nacab buu ahaa xistiga wuu ka caaganaa xoolaha wuu bixin yiqiin muxuu doobi xoor lahaa qof baahan xigsiin ku habay nimaan xakamaba sudhnayn keenada aan ku xasilayn xorriyad u hadluu ahaa nin sheekada soo xigtoo ku xiiqa midaanu curin xaashee ma ahayn bulaan doobtiisuna xoorinoo rakaadana aan xumbayn haddaan la isxaasidayn abaabulka xiinaan demin ordoo xusulduubka jarin xadhkuu gunto aan la furin xeerbeegtiya buu ahaa fankeenna xaskii la dhigay nin xooxsaday uu ku furay inuu xaadho u jeclaa xaglaa kama laaban jirin xanuunkan dilaa ku helay xiiqdii kala soo tegiya xuurtayntii xijaabaya xuseen jaamac buu ahaa naanays xaaji buu ahaa xag loo dayo wuxuu ahaa ninuu fanku aad u xulay xeeldheeridda loo og yahay inuu xubnihiisa badan horyaal xula uu ka yahay taariikhdu xusaysa abid xishmayntana loo og yahay suugaanta xurmaynta mudan sheekooyin xariirta hilan alxaan xaadda taabatoo xiskaagaba taabtay iyo maalmuu dhaxalay xaleen xareedaa muxuu ka tegey xabaashaada nuur hadhee cadaab eebbe kaa xoree jannada goob lagaaga xaadh ilaahay xuural cayn xilahaad rabti kaaga yeeli aada iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdi yuusuf ducaale boobe oo ka warrameeyey taariikh nololeedkii ilaahay naxariistana ka waraabiya xuseen jaamac rooble xaaji gujis oo ahaa halabuuraa weyn